filimkani ayaa ku salaysan qisada nin la yidhaahdo Tedious Teddy Petrofsky oo ahaa feeryahan xirfadle ah kaasoo ka soo jeeda dalka Poland. Sannadii 1940 markii ay Naaziyiintu go'doomiyeen magaalada Warsaw ayaa Teddy uu ka mid ah maxaabiistii ugu horreysay ee la geeyay xerada Auschwitz oo dalkiisa ku taalay. intii uu saf ku jiray isagoo maxbuus ah ayaa Teddy uu indhahaas ku qabtay wuxuuna dib u xasutay waayihiisii wacnaa iyo markii uu feer ku tababaran jiray daarada gurigiisa. hase yeeshee si lama filaan ah askartii Jarmalka ayaa maalin soo qabatay oo xeradan keentay. kadib markii la soo qabtay Teddy oo ay weheliyeen maxaabiis kale ayaa lagu khasbay inay maalintii oo dhan ka shaqeeyaan buurtan si ay dhagaxaanta u jebiyaan. waxaa dhammaantood la isugu geeyay hal qol oo cuntada keliya ay heli karaan waxay ahayd maraq biyo ah oo aan ka saacidi karin inay saacado badan shaqeeyaan. maxaabiistu waxaa ka mid ah wiil 15 jir ah oo lagu magacaabo Janik kaasoo inta badan lagu gumaysan jiray cuntada. maan iyagoo shaqada ku jira ayaa maxbuusta ahi uu ka sheekeynaya qorshe uu xeradan uga baxsan karo. si kastaba markii askartii Jarmalku arrintan ogaadeen ay waayeelkii si naxariis dar leh ugu dileen badeel ama majaraafad. maanta xigtay Janik wuxuu u tagay Teddy oo wuxuu u sheegay inuu ka mid yahay taageerayaashiisa. wiilkan wuxuu TV ka daawan jiray ciyaarihii feerka ee Teddy. kadib Teddy wuxuu aaday guriga sarkaal Jarmal ah si uu kursi ugu geeyo. kadib markii howshiis qabsaday ayuu si dhuumasho leh u galay qolkii fadhiga wuxuuna soo xaday tufaax yar oo wax ka siiyay Janik. kadib wiilku wuxuu tufaaxii la wadaagay oday waayeel ah oo Erik la yiraahdo. tani waxay Teddy ka dhigtay inuu garwaaqsado in Janik uu yahay ruux naxariis badan. nasiib daro askartii Jarmalku waxay ogaadeen tufaaxii la soo xaday sidaas darteed waxay u yimaadeen inay Teddy soo xiraan maadaama ay sidoo kale arkeen Janik iyo waayeelkii Erik ahaa oo tufaaxii cunaya ay iyaguna soo wadeen. muuqaalka qaybtiisa xigta waxaan arkaa 3 qof oo la geeyay meel dadka lagu dilo halkaas oo aynu arki karno askartii Naaziyiinta oo maxaabiis leynaysa. Janik, Erik iyo Teddy waxay daawanayeen arrintan. sarkaal Jarmal ah ayaa odaygii Erik ku amray inuu hore u soo baxo oo uu tufaax madax saarto. isagoo naftiisu baqaya Erik ayaa amarkan u hoggaansamay. sarkaalkii wuxuu qoriga ku qabtay tufaaxa balse markii uu xabad riday wuxuu toogtay Erik kaasoo goobta ku dhintay. dhacdadan naxdinta leh kadib Teddy ayaa saf ku xigay waxaana lagu amray inuu sidii Erik oo kale sameeyo. si kastaba dagaalyahankiinu aan cabsida aqoon ayaa bilaabay inuu tufaaxii cuno isagoo ku andacoonaya inuusan Naaziyiintu ka baqaynin. sababtaa awgeeda sarkaalkii Jarmalka ayaa xanaaqay oo wuxuu si daran u ciqaabay Janik. Teddy wuxuu ka baryay inuu ka daayo laakiin warkiisa dhag jalaq ma loo siin. habeenkaas Janik waa uu seexan kari waayey maadaama si xun loo ciqaabay. Teddy wuxuu naftiisa ku eedeynayay inuu wiilkan dhibta u lahaa. isla waqtigaas waxaynu aragnaa yuhuud tiro badan oo loo waday qol god ah halkaasoo askartii Jarmalku ay gaas sun ahi ku shubayeen si ay u dhintaan. xaaladda maxaabiista ayaa kasii dartay kadib markii lagu amray inay shaqada bilaabaan qorax soo baxa ka hor. intaa waxaa sii dheer in lagu xadgudbayay oo la siinaya cunto ka yartii hore. maxaabiistu waxaa loola dhaqmayay si xun oo xitaa qaarkood ayaa suuxay oo isla goobtaas ku dhintay. habeen askari Jarmal ah ayaa cunto ku tuuray dhulka. markay maxaabiistii gaajisneed ay arrinkan arkeen waxay ku loolameen sidii ay cuntada u heli lahaayeen. askarigii wuxuu ku raaxaysanayay arrinkan sidaas darteed cunto badan ayuu tuurayay wuxuuna maxaabiista ku dhiirigelinayay inay isdilaan si ay cunto badan u helaan. qallaasa daran ayaa dhacay markii ay maxaabiistu bilaabeen inay isqabsadaan. askarigii wuxuu Teddy oo meel u dhaweed ka shaqaynayay ku amray inuu kusoo biiro loolankan. maadaama Teddy uu horey u ahaa feeryahan wuxuu si dabiici ah ugu diyaarsanaa dagaalka. qof walba ayaa yaabay markii uu Teddy ka adkaaday dhammaan raggii laga hor keenay kuwaas oo u isticmaalay farsamooyin aan caadi ahayn. askari Jarmal ah oo boksiga ku fiicnaa ayaa Teddy ku xujiyey inay dagaalamaan. haleegeena geesiga ah ayaa isla markii u aqbalay oo sidaas ay ciyaartii ku bilaabmatay. inkastoo qof kasta uu aaminsan in askarigii Jarmalku uu guulaysan doono ayaa Teddy uu caddeeyay inay qaldan yihiin oo wuxuu feer xanuun badan la helay ninkii. Teddy ayaa ciyaartan ku guulaystay oo askarigii Jarmalkuna wuxuu u muuqday qof ixtiraam badan. waxaa kale oo si abaalgud ahaana loo siiyey cunto macquul ah. wuxuu Teddy cuntadii la sii wadaagay maxaabiista gaar ahaan wiilkii yaraa ee Janik kaasoo dartiisa loo ciqaabay. maadaama aysan haysanin meel fiican oo ay ku hoydaan Janik ayaa la ildarnaa hargab kaasoo aakhirkii isku beddelay qandho kadibna oo fureer. isagoo dareemaya ciirsalaan Teddy ayaa go'aansaday isagoo xirfadiisa adeegsanaya inuu wiilka caawiyo. marka hore wuxuu u tagay askarigii Jarmalka ee naxariista ku jirtay wuxuuna ka baryay inuu caawiyo. ninkan waa aqbalay laakiin wuxuu Teddy u sheegay inuu sameeyo wax kasta oo laga dalbado. isagoo madaxiisa ruuxaya ayuu arrinkan aqbalay. kadib waxaynu aragnaa askarigii Jarmalka oo Teddy u geynaya madaxdii ka sareysay. maadaama ay saraakiishu rabeen waxay isku maawiliyaan ayuu u sheegay in Teddy uu yahay feeryahan wanaagsan oo wuxuu ka codsaday inay qabtaan tartan feer ah. marka hore saraakiishii ayaa ku maadsaday fikraddan sababtoo ah way aamin waayeen in Teddy oo khaliir ahaa uu qof iska dhici karo. si kastaba Teddy markii uu muujiyay xirfadiisii boksinka ayaa sarkaalkii Naazigu u rumaystay inuu ninkan yahay feeryahan. waxaa loo soo bandhigay heshiis ah in kulan kasta uu guulaysto la siin doono cunto iyo biyo dheeraad ah. maalintii xigtay Teddy wuxuu isku diyaarinayay ciyaartiisii ugu horreysay ee xabsiga. wuxuu si sahal ah u garaacay ninkii ka soo horjeeday isagoona ka yaabsaday saraakiishii Jarmalka ee goobta ku sugneed. waxaana sidoo kale aragnaa cunug yar oo Jarmal ah oo si xamaasad leh u taageeraya Teddy oo garaacaya ninkii ka soo horjeeday. maadaama uu ciyaarta ku guulaystay waxaa la siiyey xoogaa cunto iyo biyo ah. waxaa kale oo loo diray inuu ka shaqeeyo xerada fardaha oo uuna sii wato tababarkiisa. intaa waxaa dheer in Teddy loo ogolaado inuu tago isbitaalkii xabsiga. wuxuu aaday halkaasi uu u dhayay dhaawacdiisii fududaa ee ciyaarta ka soo gaaray. kadib markii howshiisa loo dhameeyey ayuu kalkaalisada weydiistay dabada oo fureerka. maadaama kalkaalisadii ay ahayd qof wanaagsan ay daawadii ninkan siisay. waxay kaloo u raacisay daawooyin dheeraad ah oo loogu talagalay cudurrada kale.
intaas kadib Teddy wuxuu booqday maxaabiistii wuxuuna Janek siiyey daawadii Ofreerka sidoo kale wuxuu daawooyin kale ku wareejiyey shaqaale caafimaad si maxaabiista dhimanaysa ay ula tacaalaan muddo kadib Janek ayaa ka bogsaday cudurkii oo Teddy wuxuu xitaa maareeyay inuu wiilkan isbitaalka geeyo oo uu halkaas ka shaqeeyo si uu uga nasto shaqadii dhagax jibinta intuu isbitaalka ku sugnaa Janek wuxuu la kulmay gabar qurux badan oo ay isku da' ahaayeen meel kale oo xerada ka mid ah maxaabiista waxaa loola dhaqmaya si xun oo bini'aadanimada ka baxsan maalin kasta boqolaal ayay ka mid ah ayaa la geenaya qolkii gaaska sunta lahaa si ay halkaas ugu baaba'aan maalmuhu waxay socdaanba Teddy wuxuu ka adkaanaya dhammaan kuwii la hor keenay guul kasta uu gaaro isaga oo keliya ma aysan u ahayn muhiim balse waxay kaloo rajo u ahayd dhammaan maxaabiista isaguna wuxuu sii waday inuu cuntadii iyo daawooyinkii la wadaago maxaabiista inkastoo saraakiishii Jarmalku ay ciyaartiis ku raaxaysanayeen haddana ay ka daaleen daawashada guuliis is xigay maalmaha ka mid ah sarkaal sare ayaa yimid xeradii fardaha si uu faras u qaato markaas ay u tagay Teddy oo wuxuu sheegay in saraakiishu ay ku raaxaysanayeen ciyaartii safarka balse ay imaan doonto maalin uu wajihi doono dagaalyahan adag oo uuna dib ugu laaban doono shaqadiisii dhagax jibinta maanta xigta Naaziyiinta waxay xabsi kala keeneen maxbuus xoog badnaa iyagoo rajaynaya inuu Teddy ka adkaan doono intay ciyaartu socotay Teddy wuxuu laba dharbaaxa kala kulmay ninkii feeraha weynaa si kastaba hatee geesigan wuxuu cadeeyay inuu yahay khibrad badan oo wuxuu isticmaalay aqligiisa wuxuu si xirfad leh ugu guulaystay ninkan weynaa intaa kadib waxaa lagu abaalmariyay cunto ka badneed tii hore oo wuxuuna la sii wadaagay maxaabiista isla waqtigaas cunugii yaraa ee Teddy taageeraha u ahaa ayaa bukooday waxaana laga helay tifow waxaa soo baxday inuu dhala jenaraal Jarmal ahaa markii uu arkay cunugiisa oo cudurkan la ildaran jenaraalku uu aad u murugooday oo xitaa sidaan oo kale ma uusan u murugoon markii uu carruurtii Yuhuudda gelin jiray qolkii gaaska sunta lahaa oo uuna dilayay kadib Teddy wuxuu arkay meedadka qaar oo ganjeelka banaankiisa loo sii wado aad ay ugu xumaaday markii uu arkay meedka ninkii la feertamayay oo halkaas ku dhex jira habeenkaas askartii Jarmalka oo hogaaminaya jenaraalka ayaa soo aruuriyey kooxo kale oo maxaabiis ah waxay dadkii ku amreen inay saf galaan maxaabiista waxaa loo sheegay inay dharka iska siibaan maadaama ay gudaha ku qubaysan rabaan waxaa daha laga qaaday in maxaabiistu aysan ka warqabin in lagu dhex dil rabo qolkan Naaziyiintii ayaa beentan maxaabiistu sheegaya si aan amarkooda looga hor imaan dhan kale Janek saaxiibtiisa oo cunto soo xaday ayaa la soo qabtay sidaas darteed dibadda ayaa la soo bixiyey si loo ciqaabo mid ka mid ah askartii Jarmalka ayaa markaas biskoolad ku qabtay isagoona diyaar u ahaa inuu dilo balse inantii ayaa si degdeg ah ninkan qoriga uga daftay oona madaxa ka toogatay waxaa kadib askartii Naaziyiinta oo dhammi ayaa gabadhan xabado ku soo furay oona goobtaas ku dilay waxay sidoo kale dileen dhammaan maxaabiistii la waday qolkii gaaska intii lagu guda jiray qallalaasahan waxaa sidoo kale gacanta laga dhaawacay jenaraalka kaasoo loo qaaday isbitaalka Janek aad buu ugu xumaaday markuu ogaaday geeridii saaxiibtiisa isagoo aan cid kale u leexan ayuu u orday meeshii uu Teddy joogay waana uu isku duubay isagoo oonaya dabada intii isbitaalka lagu daaweynayay taliyaha ayaa ogaaday in Janek uu saaxiib la ahaa gabadhii la dilayay kadib wuxuu bilaabay inuu wiilkan maskiinka ah jir dilo isagoo xabsiga ku haynaya subaxdii xigtay Teddy markii uu arrinkan ogaaday ayuu saraakiishii ka baryay inay wiilka iska sii daayaan laakiin warkiisa waa la diiday kadib Teddy wuxuu soo bandhigay heshiis ah inuu la tartamayo feeryahanka ugu fiican ee Jarmalka oo haddii uu ninkaas ka adkaadana ay tahay in wiilka la sii daayo saraakiishu heshiiskan si fudud ma aysan ku aqbalin oo waxay soo jeedeen in Teddy uu marka hore la dagaalamo qaar ka mid ah askartooda si uu ugu dambeyntii ula tartamo feeryahankooda ugu fiican inkastoo uu markii hore ka labalabeynayay ayaa aakhirkii uu geesigeena arrintan aqbalay maalintii dambe ciyaarta ayaa ku bilaabmatay sidii lagu heshiiyey oo Teddy wuxuu u wajahay qaar ka mid ah askartii laakiin mid ayuu dhammaantood uga adkaaday ugu dambeyntii waxaa u soo baxay inuu la dagaalamo feeryahankii ugu fiicnaa ee Jarmalka inkastoo feeryahankan uu muuqday mid aad u xoog badan ayaa haddana Teddy uu ku guulaystay inuu ninkan si fiican u garaaco saraakiishii Jarmalku markay tan arkeen ayay ka xishoodeen in feeryahankooda uu ka adkaado maxbuuskan maskiinka ah sidaas darteed waxay qiyaameen ciyaarta iyagoo Teddy siiyey dareere aan la aqoon waxa uu yahay wareegga labaad wuxuu bilaabay inuu dabaqo oo uu najah weeraro iyadoo ay taasi jirto Teddy ayaa isku dayay inuusan isdhiibin oo waa uu isdifaacayay si kastaba hatee saraakiishii Jarmalka ayaa ciyaarta soo gabagabeeyey iyagoona ku andacooday inuu feeryahankooda guulaystay Teddy ma uusan aqbalin oo isagoo tabaryareynaya ayuu arrinkan diiday daqiiqado kadib Janek oo ku jiray xaalad aad daran taasoo ay ka dhalatay jirdilkii loo geystay ayaa Teddy loogu soo hortuuray jenaraalku wuxuu markaas Teddy ka dalbaday inuu wiilkan maskiinka ah la dagaalamo oo haddii uu diidana wiilka loo dhammaynayo Teddy wuxuu sheegay inuusan far u qaadi doonin wiilkan yar markaasna waa marka uu jenaraalku si naxariis darro ah rasaas ugu furay Janek oona Teddy hortiisa ayuu ku dilay nasiib darro sidoo kale feeryahankeeni waxaa habeenkaasi ciqaab ahaan ah loogu xiray tiir maanta xigtay Teddy ayaa ku guulaystay inuu xergaha iska furfuro oo wuxuu aaday meeshii meedadka lagu gubayay halkaas wuxuu ka raadinayay Janek oo wuxuu kaliya helay bambal uu lahaa goobtaas ayuu in muddo ah ku murugoonayay kadibna wuxuu ku dhiiday inuu mar kale dagaalamo muuqaal qaybtiisa xigtaa Teddy wuxuu galay goobtii boxingka halkaas oo feeryaankii Jarmalku maxaabiis kale kula dagaalamayay qof kasta ayaa markii uu Teddy ninkan Jarmalka ku xujeystay inay dagaalamaan ninkii Jarmalku isla markiiba u aqbalay dagaalkan oo ciyaarta ayaa bilaabmatay Teddy waxaa markii hore lagu dhuftay dhowr feer laakiin inta uu isdejiyey ayuu u gambinayay feerarkii lagu soo tuuray ugu dambeyntii markuu ninkii Jarmalku daalay Teddy uu ninkan la helay hal feer kaas oo la soo kici waayey oo wuxuu guulaystay ciyaarta tani waxaa la dhacay qof kasta oo agtiisa ku sugnaa oo iyagoo aad u faraxsan ayaa ninkan ugu yeereen inuu yahay champion
ugu dambeyn Teddy waxaa laga sii daayay xabsiga taasoo la macnaha inuu xor noqday oo uu aadi karo gurigiisa isagoo aan maxbuus ahayn. filimka qaybtiisa ugu dambeysa waxaana la tusayaa feeryahankeenii oo ku laabanaya magaaladiisa Warsaw ee dalka Poland wuxuuna furtay gym si uu boxingka u baro carruurtii xaafadda. intaas ayuu muuqaalkan ku eg yahay. magaca filimku waa The Champion oo soo baxay 2020. subscribe sar kanalka si aad u hesho muuqaalo badan oo kale ah oo noo reeb like si aad u caawiso kanalka.